magaalada Garowe caasimada Puntland waxaa lagu soo gabagabeeyay kulankii madasha dastuurka heer federaal iyo heer dowlad goboleed oo maalmihii la soo dhaafay ka socday isla Garowe cutubiyadii shanta ay la doonayay in xildhibaan kasta maamulkiisa dib loo noqdo si gorfayn looga yeesho cutubiyadaasi maalmaha uu socday shirkan ka tashiga dastuurka qabiyo qoraalka waxaa laga soo saaray warmutiyeed waxaa saxaafadda u akhriyay xogayaha baarlamaanka Puntland Cali Axmed Saalax warmutiyeed 11 Oktoobar 2018 shir la tashi oo socday muddadii u dhaxaysay 9 ilaa 11 Oktoobar 2018 laguna qabtay magaalada Garowe ee Puntland ayaa waxa isugu yimid xubnaha madasha gudiyada dastuurka ee heer federaal iyo heer dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka oo ka kooban guddiga dib u eegista iyo la socodka hirgelinta dastuurka guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka gudiyada dastuurka baarlamaanada dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka iyo xubno ka socda gudoomada baarlamaanada Puntland Jubbaland Koonfur Galbeed Galmudug iyo Hirshabeelle waxaa si rasmi ah loo daahfuray la tashiga natiijada dib u eegista cutubiyada koowaad ilaa shanaad ee dib u eegista lagu sameeyay warbixinta soo jeedinta wax ka bedelka cutubka koowaad ilaa cutubka shanaad ee dastuurka ku meel gaarka ah ayaa laga dhageystay gudiyada heer federaal ee soo diyaariyay cutubiyada xubnaha madasha gudiyada dastuurku waxay ka doodeen shanta cutub ee dib u eegista lagu sameeyay waxayna soo bandhigeen aragtidooda ku aadan soo jeedinta gudiyada dastuurka ee heer federaal waxaa lagu ballamay in gudiyada dastuurka ee dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka kula noqdaan baarlamaanadooda loona diyaar garoobo sidii la tashiyada loo gaarsiin lahaa golayaashooda iyo shacabka ku dhaqan Soomaaliya oo dhan madasha gudiyada dastuurku waxay bogaadinayaan dadaalka badan ee ay sameeyeen gudiyada dastuurka ee heer federaal ee soo diyaariyay cutubiyada koowaad ee soo diyaariyay wax ka bedelka cutubiyada koowaad ilaa shanaad ee dastuurka iyadoo ay jirtay caqabado badan ee la xiriira geedi socodka dib u eegista dastuurka xubnaha madashu waxay isku raaceen in la tashiyada shanta cutub loo bilaabo sida ugu dhaqsaha badan shirka saddexaad ee madasha gudiyada dastuurku wuxuu dhici doonaa horaanta bisha Febraayo 2019 iyadoo goobta ay ka tashan doonaan xubnaha madasha madashu waxay baaq u soo jeedinaysaa madaxda baarlamaanada iyo fulinta ee heer federaal iyo heer dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka inay taageero wax ku ool ka geystaan dib u eegista dastuurka isla markaana laga fogaado wax walba oo caqabad ku noqon kara hawlaha dib u eegista dastuurka waxayna madashu ugu baaqaysaa xukuumadda federaalka iyo kuwa dowladaha xubnaha ka inay heshiis degdeg ka gaaraan qodobka 54 ee la xiriira awood qaybsiga si looga hortago dib u dhac ku yimaada dhamaystirka cutubiyada shanta Dr. Maxamed Daahir Afrax gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee dastuurka dib u eegista hirgelinta ayaa isaguna dul istaagay in dastuurkan yahay heshiis bulshada loona baahan yahay in laga wada heshiiyo ka guud ahaanna ay soo dhaweynayaan arintaasi dastuur waxa la yiraahdaa waa heshiis bulsho weeye marka bulshada qaybaheeda oo dhan waa inay ku heshiiso si ay uga heshiisana waa in la socodsiiyaa laga talageliyaa marka haddaba waxaanu daahfuray tani waxa weeye kulankani waa tallaabadii koowaad oo la tashigaas ee dhabta oo nuxurka dastuurka laga wada tashanayo ee hore loo qaaday weeye oo laga bilaabay cidda xudunta u hawshan iyada iyo gudoomiyaha guddiga la socodka dastuurka baarlamaanka federaalka Soomaaliya Senator Xasan Cawaale Qaybdiid ayaa gudiyada faray inay si wadajir looga shaqeeyo arintan goboladii ay gudiyadu ka yimaadeen ay gaarsiiyaan shirkan go'aamadii lagu la fuguray waxa la yiri kala tagna looma ballan laado wada joogna looma tala laado mar haddii la kala loo aadayo deegaamo kala duwan la aadayo
waxaan ku boorinaynaa kula dardaarmaynaa walaalaha meelaha kala duwan tegaya meeshaasi hadal hayskii ahaa maxamed taarix wuxuu yidhi dhinacay ka baxdaa barbarkay ka baxdaa waa bakayla qaleentii la yidhi waxaan leeyahay kaasaan adkaynayaa. gabagabadii kulankaasi waxaa soo xidhay gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Axmed Cali Xaashi waxa uu iftiimiyay cutubiyadii shanta ay isku afkarteen marka laga reebo qodobka 54 kaasoo laga yeelan doono ka tashi guud loona ballamay bartamaha sanadka 2019 waqti ku filan ay haystaan. waxaan soo gaarnay maanta inaynu shaqo badan waqti kooban ku qabanay 5 cutub oo muddo la soo diyaarinayay ayaa hal qodob oo ah qodobka 54 mooyaane intii kale la tashi laga yeeshay muddana la qabsaday muddadaas oo ah muddo ku filan. Maxamed Axmed Jaamac Maxamed Bidaanshe telefishinka caalamiga SBS Garowe.